بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن. wasiirka wasaaradda dib-u-dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada Somaliland Salebaan Ducaale Xaaji Jaamac oo labadii casho ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo ayaa maanta xadhi ka jaray xarunta xafiiska wasaaraddu ay ku yeelanayso caasimadda gobolka. waxaana wasiirku halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda xafiiskan uu yeelan doono guud ahaanba gobolka Sanaag. waxaa kaloo noo suurtooday inaan xafiiska xariga ka jarno xafiiska wasaaradda dib-u-dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada taasoo lagu shaqayn doono gobolka Sanaag, degmada Sanaag iyo gobolka oo dhan. halkaas waa xafiis cusub aan xariga uga jarno oo ku shaqayn doono shaqaalaha wasaaradda ee gobolka iyo suduwada hogaaminayo. alxamdulillaah ilaahay mahadle maanta noo sugnaatay inaan ka jarno xariga. waxaana sidoo kale halkaasi hadalla mahadcelin ka soo jeediyay isudwaha wasaaradda dib-u-dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Xaaji Saalax. waxaanu maanta xariga ka jaraynaa xafiiska wasaaradda dib-u-dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada gobolka Sanaag. waxaa noo sharaf ah anigoo isduwa ah iyo wasiirka wasaaradda dib-u-dejinta mudane Salebaan Ducaale inaanu ku guuleysanay xafiiska gobolka Sanaag oo kamid ah gobolada Somaliland ugu ballaaran inuu wasiirku ku guuleystay inuu markaas maanta uu xariga ka jaro oo xafiiska wasaaradda markaas uu furo. waxay ka mid tahay guulaha wasaaradda ee markaas maxaan ku raahdaa aanu gaarnay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan wasiirkan u hambalyeynaa. shacab weynaha gobolka Sanaagna waxaan leeyahay xafiiska wasaaradda dib-u-dejintu maxaan ku raahdaa waa idin furan yahay, gacmo furan ku soo dhawaada. servicekii iyo adeegyadii maxaan ku raahdaa wasaaradda ay u qaban jirtay shacabkana maxaan ku raahdaa xafiiskan baa lagu qaban doonaa. dhinaca kale wasiirka wasaaradda ayaa waxa uu kormeer ku soo sameeyay qaybaha kala duwan ee xarunta ay wasaaraddaasi iyadoo halkaasna uu ka hadlay xafiiska cusub aan xariga uga jarnay ee shaqaaluhu ku shaqayn lahaayeen shaqaalaha gobolka Sanaag siba degmada Ceergaabo isduwihii iyo shaqaalihiisii waa xafiiskan ku shaqayn doona shaqada wasaaraddana ku wada doona si fiican. qalabka wixii ka dhinaana Hargeysa aan uga keenay insha Allah iyo gaadiidkiiba si fiican wixii bini'aadanimada wixii dadka dayartaa wixii dadka qaxootiga intaba xafiiska baa ugu shaqeynaysan si fiican baa u shaqeynaysan shaqadiina si fiican u guta. waxa weeye shaqada toddobaad bilaawsan labadana waa rawaxsan saddex galabnimana waa rawaxsan. waa amarkii madaxweynaha iyo hay'adda shaqaalaha waxay soo jeediyeen in shaqada la bilaabo toddobada saddexna la rawaxo. taasana fulinaysa taasana ku waajiban dadkana u adeegaysan haday tahay dadka dayartaa haday tahay dadka qaxootiga haday tahay dadka bini'aadanimada u baahan waxaas oo dhan u adeegaysan. Ali Aadan Daahir.